السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصاحبكينا عبد الحكيم قبيركا maanta waxaan idiin wadaa cashir aad u xiiso badan oo cashirka cashir aad u fiican waaye. Wuxuuna ku saabsan yahay Facebook ayuu ku saabsan yahay sida loo bedelo maaragtay maxaa ahaa luqadda Facebooka oo maaragtay looga dhigto luqadda hooyo ama luqadda maaragtay waddankaad u dhalatay oo kale. luqadda la bedelay luqadda dhan maahan waxa weeye waa luqadda waxa weeye translationka oo maaragtay waraaqa luqadda waxa weeye maaragtay turjumaanta markii tusaale oo kale qof markii uu soo dhigo English oo kale hoos waxa ku qoran translate yacni waa turjumi kartaa hadduu English yahay dee waa English translate kuu soo saari maayo laakiin haddii uu kuu saaran yahay tusaale oo kale luqadda Soomaaliga hadduu kuu saaran yahay oo kale ama Carabiga kale hadduu kuu saaran yahay oo kale oo qof post English soo dhigo post English kan aad fahmi weyso hoos ba waxa ku qoran maaragtay translate kaas ku dhufanaysaa luqadda kuu saaran baa lagu turjumayaa maaragtay maxaa postigaas marka hadda aniga wuxuu ii yahay luqadeeda hooyo ayuu ii yahay Soomaali ayuu ii yahay wixii aan garan waayo oo kale maaragtay translate baan dhahaa Soomaali ahaanba waa lagu turjumaa marka aad buu u xiiso badan yahay marka waxaan jeclaan lahaa inaad ka faa'iidaystaan wixii aniga aan garanayo waxaan garanay ma wax igu soo dhacay waaye anoo iska falfalaadayo waxaan arkay translate language oo ku dhuftay ka bacdina luqado badan English ii saarnaa sida maaragtay Facebook markii aad furinayso kale English baa saaran oo waxa ay ka maaragtay automatic ahaan u waxeeyeen waaye marka sa u baarayo waxaan luqadaha meesha ku jiro kale Soomaali laga weyni maayo aan raadiyo sa u raadinaya magdaba Soomaali ku arkay waan ku bedeshtay markaas post walba la soo dhigo translate baan dhahaa luqadeeda hooyo lagu turjumaa marka idinkan aad bay idin anfacaya dadka maaragtay oo English maaragtay si fiican u aqoon oo kale way u wanaagsan tahay oo kale marka maaragtay inay translate ka luqadooda ka dhigtaan kii Carabi yaqaan Carabi ka dhiganaya kii aan Carabi aqoonin wuxuu ka dhiganayaa maaragtay maxaa luqadiisa hooyo Soomaaliga ama English ku xiro adiga qofka option-kaas iska leh kii English yaqaano Englishkii uu fahmi karo English ka dhiganaya kii English aan fahmi karin Carabi u fahmi karin Carabi ka dhigana qof walba luqaddu fahmi karo kolay Soomaali adduunka dhan bay ku faafsan tahay oo nin kastana luqad u gaar ayuu yaqaanaa marka waxaan cashirka inaan bilaabaa rabaa asxaabta cashirkana laga faa'iideysto waxaan idinka codsanayaa oo mar labaad iyo mar koowaad waxaan idinka codsanayaa inaad channelkan subscribe ii saartaan oo maaragtay share gareysaan oo walaalihiina u share gareysaan marka cashirkan bilaabayaa markii hore Facebook ay maaragtay soo furanaysaa hadda ayaan idin bilaabayaa Facebook soo kicinaysaa haddii apps-ka Facebook aad haysan waxaad ka galaysaa maaragtay maxaa Google Chrome-ka ama Google caadiga aad ka galaysaa ka bacdin facebook.com baa leedahay account-ka ku gashan yahay automatic asaa ku soo saaraya hadduu ku gashan account-ka geli ayuu ku leeyahay marka account-ka gelisid oo sidan camal soo baxo meeshan maaragtay maxaa saddexda diilmood oo ay ku suran tahay oo geeska ah oo qaybta setting-ka Facebook waa meesha dhan Facebook laga xukumo qaybtan geeska marka hoos u soconaysa waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay setting ku qoran tahay tagaysaa setting baa leedahay setting baad dooranaysaa setting markaad doorato setting-kaas dee setting lagu sheegi maaye mobile hadday noqoto wax walba oo apps ah ama maaragtay maxaa oo adiga maaragtay software ah aan setting lahayn ma jiro setting waa meesha dhaqdhaqaaqa oo application-kaas ama maaragtay mobile-kaas meesha wax laga xukumo baa setting-kaas maaragtay maxaa ku jira wax walba maaragtay Facebook ku saabsan idil dad u baahan tahay setting-kaas ka helaysaa markii uu saan kugu soo saaro personal information haddii aan sharaxaad yar aan ka bixiyo personal information waxa weeye waa bixinta Facebook ku saabsan halkan hadda fiiri update your name phone numbers and email address wax walbo halka hadda ku dhufto waxa soo baxaya Facebook-gayga gmail-kiisa magac ku sawiran magac saaran maaragtay maxaa lambarkii waxaas oo dhan baa soo gelaya dadka public maaragtay lagama dhigto waa la qarsadaa waa information-kaaga waa personal information dadka lama wadaago waa information-ka shakhsiyadaada waaye wixii adiga shakhsiyadaada ah dadka hala wadaagin dib baa kaaga iman kara tusaale haddii aan furo waxa arkaysaan oo idil ciwaankan ku soo galo Facebook maaragtay lambarkii gmail-kii markaas xariifkii ciil ii qabo kale wax u fududaanaysa inuu jabsado marka weligaaga
qaladkaas oo kale ha gelin inaad maaragtay intaa meeshan kale adoo cashar sharaxayo kale waa la iska ilaaliyaa marka cashar tusaale kale haddaa cashar sharaxayso kale stop baa la dhahaa personal informationkaaga la galaa kabacdi meesha u baahantaa laga sii galaa kale hadda tusaale kale marka Facebook AD u wixiinayso kale casharkaas inaan sharxay aan u maleynaa waxaad ka heleysaan YouTube-ka ka heleysaan waa qaabka loo waxeeyo AD-gaas wuxuu kuu maaragtay maxaa ku fiican yahay markii Facebook-gaaga AD u wixisid dee qof Facebook-gaaga ku saqjaami kara ma lahan waa AD-gaaga waa xiran yahay security ID al dhahaa AD-gaaga dad Facebook ku xiratid cid kaa jabsan karta ma lahan qofkii kaa jabsadoo kale waa soo ceshin kartaa AD-gaaga maaragtay kabacdi markaa soo ceshin sidoo kale wuxuu ku leeyahay AD-ga geliyo kule AD-ga markaa screenshot-ka ka soo qaad sawirka ka soo qaaday baa gelinaysaa kabacdi scan buu marinayaa bas Facebook-gaaga dib buu kugu soo laabanayaa si fudud ku soo ceshin kartaa marka kaasina cashirkii aan u socno maahan marka meeshan waxaa ku qoran translation for postigaaga ayaa maaragtay turjumaysaa waxaad ku turjumaysaa meeshaan ku dhufanaysaa adduunka waxa luqad laga isticmaalo idinba meeshaan laga helaa halkan waxa weeye language region setting waa gobolada maaragtay luqadaha gobolada ah waaye marka kana ma quseeyo meeshaan u socono waa meeshaan waxa ku weeye waa language into which you like to have post translate luqada aad jeceshahay inaad ku turjuntid postigaaga aad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid waxaa soo baxaya adduunka waxa luqad laga isticmaalo idin baa soo baxaya hadda aniga tusaale kale Soomaaliya ay saaran qofka maaragtay Soomaaliga aan u saarnayn oo kale Soomaaliga ayuu raadinayaa qofkii Turki yaqaano Turki u raadinaa kii Swahili yaqaano Swahili u raadinaa kolay aniga maaragtay luqadeeda ayaan ku faanaa marka taas tirtiisa luqadeeda doortay waa kaas af Soomaali meel laga helo maaragtay maxaa luqadaha adduunka internationalka meesha laga helo Soomaali kolay laga weyni maaye aad ka heleysaan marka kaas af Soomaaliya ku qoran af Soomaaliga hadda tig waa saaran yahay tig baa saaranaysaa kabacdina kor u laabanaysaa intaad tig saartid ka laabanin haddii aad ka laabatid waxaa lagaaga baahan yahay safe dhihdid wax walba oo markii wax option aad dooratid oo kale done ama safe ayuu leeyahay waa inaad iska ilaalisa waay hadda tusaale kale luqadii u baahan tahay dooratay hadduu Carabi yahay saas u dooranaysaa tigtaas wuxuu aadayaa meeshii aad dooratid meel taagnaan maayo hadda tusaale kale tan oo kale Tamilkan aad dooranayaa kole Tamil way adagtaa saaxiib igu soo ordbaan Telugu naga sii daran marka luqada u baahan tahay dooranaysaa af Soomaaliya kale af Soomaaliya tig saaraysaa kabacdi kor baa aadaysaa kor baa u soconaysaa meeshaas waxa ku qoran safe af Soomaali waa idaa af Soomaali hadda waa hubinaysaa af Soomaali hadda waa saartay marka af Soomaali saartay kor baa aadaa kor markii aado halkaas waxa ku qoran safe baan leeyahay bas waa intaas oo kaliya waa kaasa translate-kii waxa weeye Soomaali waaye tusaale yar marka idin siinaya hadda translate-ka language marka soo gashid language and region setting hoosteeda waxa ku qoran language in which you did like to have post translated meesha dooranaysaa meesha luqada ka dooranaysaa marka bas example yar idin siinaa example yar hadda idin siinaa hadda tusaale kale gabadhan oo kale maaragtay friendska ka mid tahay oo kale waxay maaragtay maxaa waa kan okeedii tusaale yar waxaan idin siinayaa oo maaragtay maxaa ilaa wax walba markii maaragtay qofka tusaale in maaragtay laga bixiyaa marka wanaagsan marka postiga maaragtay saan oo kale hadda dooda kale maaragtay maxaa buu ku saar taas oo kale markii maaragtay uu ku saaro hoosteeda maaragtay meel hadda tan Chelsea ku qoran Chelsea waxa weeye maaragtay maxaa waa farxad waaye marka hoosteeda kale wuxuu kugu soo saarayaa maaragtay maxaa translate waa ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid kabacdi postiga meeshaas ku qoran tahay Chelsea ku qoran tahay wuxuu u bedelayaa luqadii aad saaratay wuu u bedelayaa marka aad bay u wanaagsan tahay saaxiibta cashirkan waa intaas kaliya ha laga faa'iideysto channel-kana maaragtay hal ii kala kiciyo nimayo meeshan waxaan ku sharaxayaa Soomaali waa English maahane baasha ii kala kiciya like ii saara share dhaha marka asxaabta marka waxaan rajeynayaa qayb baa idin rajeynayaa marka ka faa'iideysto wixii aad garan weysaan oo kale comment-iga igu soo reeba